kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa channelka Baakacade oo aad ka heshaan xogo muhiimsan oo ku saabsan xigmado maanta eegi doonaa xigmada gaaban oo cajiib ah kana hadlaya caaqilka xigmada badan iyo qofka la dhaqma qorahda maanta aan idiin soo gudbin doono waxa qayb ka ah haddii ay dadku kugu faanaan hadal wanaagooda waxaad ugu faantaa aamus wanaagaaga haddii aad qof wanaag u gasho iska jir inaad dib u xasuusiso haddii aad adigana qof wanaag uu ku sameeyay kuna galay iska jir inaad ilowdo hadduu maalku ka lumo waxa ka lumay shay qiimo badan oo haddii aad u baahato aad heli karto laakiin haddii sharaftu ay ka lunto waxa ka lumay shay aanu meel goyn ama maal goyn kareen lana heli kareenin haddii rajadu ay ka lunto waxa tahay ceyr ama faqiir wax kasto seegay nolosha adduunkana ku dhibaatooday weliga hala murmin doqonka waayo waxa laga yaabaa in dadka idin dhageysanaya idin garan waayaan qofka doqonka in adiga tahay iyo in qofka kale uu yahay qofka doonayo inuu ka tago wiji wanaagsan iyo raad fiican waxa uu dadku la noolaadaa sida qof baahan oo iyagu isu dhuldhigaya sida qof isku filan oo iyaga wax taraya sida mas'uul iyaga difaacaya iyo sida dhakhtar u naxariisanaya intuna waxa ay keenaan guusha iyo horumarka qofka uu gaaro isla markaana hadafkiisu uu ka mid dhaliyo qof walba oo xarafyo bartay micnaheedu ma aha in uu wax walba yaqaano dadka oo dhan baa wax qora dadka oo dhan baa wax akhriya dad yar ayaa fahma micnaha ujeedkeeda qof walba oo akhlaaqdiisu xun tahay hadafkiisu ma gaaro waana uu liitaa mar walba qof arrimihiisa waxa ka sheegin qofkii gala meel xumaan lagu sameynayo waa la eedeeyaa oo waxa uu la kulmaa eed iyo dhibaato qofkii la saaxiibo qof xumaanta caado ka dhigtay ma nabad galo oo nafsadiisu waxa uu qayb ka noqdaa xumaanta qofka aan carabkiisa xukumin waxa uu shalaayaa wax badan sababtoo ah waxa uu dhibaato kala kulmaa wax isagu uu sheegay oo carabkiisa ka yimi dad waxa ugu wanaagsan midka hadalka yar isla markaana markuu hadla sheega wax muhiim ah inta badan aamusan quruxdu ma ahan in aad leedahay waji qurxoon laakiin waa in aad leedahay caqli qurxoon iyo qalbi qurxoon iyo sidoo kale niyad saafi ah wax walba way dhamaanayaan marka laga reebo khayrka iyo wanaagga aad qabato oo aad dadka u samayso dadka qaar way la yaab badan yihiin qofka wanaagsan way jecel yihiin laakiin xaqiisa ma siiyaan qofka xun way neceb yihiin laakiin way xisaabsadaan qof walba oo naftiisa la yaabo wuu dhumaa uu halaagsamaa isla markaana waxa uu noqdaa qof maqan qof walba oo dadka iska weynaysiiya waa uu duloobaa hoos ayuuna u dhacaa qof walba oo aan dadka la tashan waa uu shalaayaa sababtoo ah jab ayuu la kulmaa qof walba oo culimada la fadhiista waxa uu bartaa qayb ka mid ah cilmiga iyo su'aalo jawaab u baahan qof walba oo aamusnaantiisa badato waa uu nabad galaa oo bulshada inteeda kale ayuu ka nabad galaa haddaad rabto inaad noolaato adigoo faraxsan wax walbo ha xalaashan wax walbo ha fasiran wax badan iska jaahil dhig ha u murugoon shay kaa tegay sababtoo ah waxa uu kugu soo laaban doonaa isaga oo weji cusub leh qofkii raadiya saaxiib aan ceeb lahayn waxa uu noolaadaa isagoo keligiis ah qofkii raadiya xaas aan ceeb lahayn waxa uu noolaadaa isagoo doob ah qofkii raadiya jacayl aan mushkilad lahayn waxa uu noolaadaa isaga oo raadin ku jira qofkii raadiya qaraabo dhammaystiran waxa uu noolaadaa isaga oo qaraabo la'aan ah dhammaan orahdaasna waxay ku tusinayaan erayo iyo sidoo kale xikmado qaali ah oo u baahan in maskaxdaada aad ku diiwaan gashid haddii aad ka heshay muuqaalada iyo xikmadaha aan kuugu talagalnay ee aad ka dhageysatay oo aad ka daawatay page-kayga fadlan like saar subscribe dheh commentina soo raaci warbixino kale ayaad heli doontaa haddii alla uu qadaro halkan waa Baakacade Media